halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban iyo afyeenada magaalooyinka qaar barta internetka ee bbcsomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa Arbacaha 6 bisha Febraayo. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 2 duhurnimo oo buura. qodobada idaacadeena duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Trump oo khudbadiisa sanadlaha ku sheegay inuu darbi ka dhisayo xadka Mexico oo dalkiisa la wadaago. Ethiopia oo go'aan ka soo saartay khamriga iyo sigaarka, haddaba dadka sigaarka cabi jiray go'aankaas siday u arkaan. waan cabaanugu sigaarka actually laakiin inta habeen walba iyo maalin walba inaan joojiyo baa niyadeeda ku jirta. marka waa waxyaabaha aan ku dayn doonaba marka la yiraahdo meelaha dadku isugu yimaadeen lagu cabin ee dad qofkii la takooro. ururka dhalinyarada ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ee Somaliland oo sheegay inuu weli aad u sareeyo iyadoo warkii ciyaarahana meesha uu ka maqnayn. qodobada iyo kuwa kale oo Soomaaliya caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena oo soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Cali iyo Cabdiraxmaan Xaaji Cabdo ayaa la socodsiinaya. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka, waxaan u diyaaraa Kawsar Maxamed. maasanid Cabdiraxmaan. ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Stephen Biegun ayaa gaaray si looga wada hadlo kulanka labaad ee u dhaxeeya Waqooyi Kim Jong Un iyo dhigiisa Mareykanka ee Donald Trump. tani ayaa timid kadib markii uu madaxweyne Trump hadalkan ka sheegay khudbadda mideynta uu u jeediyay aqalka Koongareeska, taasoo ahayd in dabayaaqada bishan uu kulan labaad ku dhex mari doono magaalada Vietnam isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa sidoo kale ugu baaqay xubnaha Koongareeska inay meesha ka saaraan siyaasadda ku salaysan argoosiga, taasina ay xiri karto fursadaha Mareykanka. sarkaal sare oo ka tirsan ururka Taliban oo hogaaminayay wadahadallada nabadeed ay dhawaan la yeesheen dowladda Mareykanka ayaa sheegay in kooxda aysan doonin in awood militari ay kula wareegaan dalka. sarkaalkan oo magaciisu yahay Sheer Mohammed Abbas ayaa sheegay in ururka Taliban aysan ku dhawaaqayn wax xabad joojin ah inta ay ciidamada shisheeye dalka laga saarayo. labada dhinac ayaa isku haya arrimo dhowr ah, hase ahaatee dowladda Mareykanka ayaa muujisay inay ka go'an tahay inay soo afjarto colaadda 17 sano jirsatay oo u dhaxaysa dowladda Afghanistan iyo Taliban. dowladda Pakistan ayaa sheegtay in haweeney Kristaan ah oo lagu magacaabo Asia Bibi oo diinta aflagaadeysay ay iska bixi karto dalkeeda haddii ay doonto, balse haddii loo ballan qaadaya in la ilaalin doono inta nolosheeda ka harsan. wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Pakistan Shah Mohammed Qureshi ayaa sheegay in dalalka doonaya inay caawiyaan haweeneydaasi ay ka aamusaan arrintan. She's a free person. The Supreme Court waa qof xor ah. maxkamadda sarena waa ay caddaysay inaanay wax dembi ah geysan, islamarkaana way bari yeeshay. waxaan ka codsanay saaxiibadeeda ku sugan caalamka haddii ay doonayaan inay caawiyaan ha ka aamusan arrintan. haddii aad doonayso inaad u caawiso shakhsi ahaan, marka waxaan filayaa in aad uga aamusto qaab diblomaasiyadeed, taasina ay noqon karto tallaabo wanaagsan. ugu dambeyntiina ciidamada militariga ee dalka Venezuela ayaa xiray xarun isku xirto dalka Colombia, halkaas oo mucaaradka ay qorsheynayeen inay geeyaan deeq gargaar oo bini'aadanimo ah. madaxweynaha dalkaasi ayaa diiday inuu aqbalo deeqdaasi, sheegayna inay u horseedi karto duulaanka Mareykanka. warkii dunidana way naga intaa. Cabdiraxmaan. mahadsanid Kawsar. dhegeystayaal iminkan u diyaar garooba waa hagaaga dhegeystayaal aynu ku horeynay sida warka aad ku maqlayseen khudbadiisa sanadlaha iyo madaxweyne Trump uu ku baaqay in midnimada siyaasadeed la yimaado isagoo khudbadiisa 2 sano horena baaqaasi kaga dhawaajiyay. wuxuuna madaxweynuhu sheegay wadanka in uu ku talaabsaday koobac dhaqaale oo mucjiso ah. arrinta kale ee uu u baahan yahay in la joojiyana ay tahay dagaalada, nacasnimada, siyaasadda iyo weliba baaritaanada ay micno badan ku fadhiyeen. wuxuuna ku nuxnuxsaday muhaajiriinta sharci darrada ah oo ay isku khilaafsan yihiin xisbiga dimuqraadiga, isagoo oo sheegay inay ka go'an tahay inuu darbiga adag u ka dhiso xadka Mexico ay muhaajiriinta sharci darrada ah halkaasi ka soo galaan. xisbiga jamhuuriga jawaabta uu ka bixiyay khudbadda madaxweynaha oo ay soo jeedisay Stacey Abrams oo ka tirsan aqalka Koongareeska waxay sheegtay inay munaasab ahayn in muhaajiriinta halis lagu tilmaamo halkii loo baahnaa in la dejiyo siyaasad ku habboon muhaajiriinta. We know bipartisanship could craft a 21st century immigration plan
waanu ognahay inuu jiro qorshe ay xisbiyada ku sameynayaan nidaamka qarnigan 21aad oo ku aadan muhaajiriinta balse maamulkan ayaa doortay in uu xabiso caruurta oo u kala qaybiyo qoysaska in muhaajiriinta si wanaagsan lagula dhaqmo xuduudaha micnaheedu ma aha in xuduuduhu ay furan yihiin madaxweynayaashii hore sida Reagan iyo Obama ayaa arrintan fahansanaa dadka Mareykanku waxa ay fahansan yihiin arrinkan xisbiga dimuqraadiga waxaa ka go'an in la sugo ammaanka dekedaheena iyo xuduudaheena balse waa in dhammaanteen aan aqbalnaa in kaabayaasheena dhaqaalaha sida beeraha caafimaadka iyo ganacsigaba ay xoojiyaan dadka muhaajiriinta ah ee dalkan soo galaya ma aqbalayno darbiga that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls. haddaba waxaa khudbadda Trump ee xalay dhageystay oo noo soo falanqeeyay qareen Amiin Haruun oo gobolka Minnesota ku nool waxaana u warramay wariye Siyaad Saciid Saalax. waxay markii ugu horeysay oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo afhayeenka baarlamaanka dalka Mareykanka Nancy Pelosi ay ka soo wada muuqdaan shaashada telefishinka iyagoo isga fadhiya ilaa intii dib looga soo noqday xilitaankii dawladda uu madaxweynuhu ku sameeyay taasoo qaadatay muddo 35 cisho ah dabcan dadku waxay u arkayeen siyaalo kala duwan waxaa horta muuqatay in ay xidhnayd dharcad oo ay xidhnaayeen dhammaan xubnaha ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee ka tirsan golaha koongareeska Mareykanka dharcad ayay xidhnayd oo dadkaas ay maaragtay isku dhar wateen taas oo dad badan ay u turjunteen in ay ahayd macnaha banaanbax iyo maaragtay si gaar ah inay u muujiyaan shucuurtooda ay dharka isku nooca u soo gashteen khudbadii madaxweyne Trump uu xalay jeediyay waxyaabihii ugu horeeyay oo ka hadlay waxa ugu ballaarnaa dhanka dhaqaalaha oo horumar badan uu ku faanay maxaad ka xasuusataa iyada Haruuno madaxweynuhu wuxuu ka hadlay dhaqaalaha Mareykanku in uu si wanaagsan u socdo in uu laba kacleeyay intii uu isagu maaragtay xukuumaddiisu ay jirtay in maaragtay uu madaxweynuhu guulo la taaban karo uu ka gaaray in uu ka hor qaado badan oo uu isagu u dhigay in ay xayirayeen kambaniyada iyo hay'adaha aan dawliga ahayn dalka Mareykanka oo uu dhimay shuruucdii kambaniyada lagu xakameynayay taas oo suurta gelisay ayuu yiri madaxweynuhu in ay kambaniyo fara badan dib ugu soo noqdeen dalka Mareykanka walina ay socoto soo noqoshadoodii canshuur dhimista qudheeda uu soo hadal qaaday taas oo mar walba shirkaduhu dalbadaan Soomaa madaxweynuhu wuxuu ku nuuxnuuxsaday in uu qiimo dhimis ku sameeyay canshuuraha dalka Mareykanka oo uu sheegay in ay u suurta gelisay kambaniyo fara badan in ay wadanka maal gashadaan intii ay wadanka ka bixi lahaayeen kadib markii uu dhimay canshuurta oo ay ka dhigtaan xarumo ay ka sameeyaan dalka Mareykanka dabcan Amino waxa uu ka hadlay arrinta darbiga Mexico ee dawladdu muddo u xayirneed iyada muxuu ka yiri wuxuu ka hadlay in madaxweynuhu uu wali ku adkeysanayo in uu dhisayo darbi xadka ay Mareykanku la wadaagto dalka Mexico ee koonfureed madaxweynuhu wuxuu ku soo celceliyay in ay ka soo galaan xuduudahaasi dad badan oo dambiilayaal ah aan loo baahan yahay in laga hortago nabadgelyada shacabka Mareykanka ayaa khatar ku jirta oo haddii aan darbi laga dhisin khatartaasi weli way sii jiraysaa madaxweynuhu wuxuu xal u arkay in uu darbigaasi dhiso codkaasi wuxuu u dambeeyay Amiin Haruun oo gobolka Minnesota ku nool waxaana u warmay wariye Siyaad Saciid Saalax aad buu mahadsan yahay BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba golaha wakiilada shacabka ee dalka Itoobiya ayaa go'aan adag ka soo saaray isticmaalka sigaarka iyo khamriga golaha kalfadhigiisa 24aad oo yeeshay ayuu ku meelmariyay hindisa sharciyeed mamnuucaya sigaarka in aan lagu cabi karin goobaha ay dadku isugu yimaadaan khamrigana aan laga siin karin warbaahinta dalkaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyeena Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam warbaahinta wadanka Itoobiya ayaa dakhli badan ku qabtay xaysiiska ay u sameeyaan warshadaha alkoholka ama khamriga farsameeya haddaba kala fadhigiisii caadiga ah ee 24aad ee baarlamaanka wadanka Itoobiya ayaa ansixiyay in 10ka fiidnimo wixii ka horeeya xilliga dhalinyarada iyo caruuruhu soo jeedaan aan waxay siina warbaahintu ayna ka sameeynin khamriga ama alkoholka sidoo kalena baarlamaanka ayaa ansixiyay sharci ka dhan ah qofkii sigaar ku caba meel 100 mitir
u jirta meel uu dadi joogo. Deegaanka Soomaalida ayaana lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay deegaanada dalka ee dadkiisu ugu sigaarka cabka badan yahay. Dad badan ayaana hadda ka horba ka cabanayay sigaarkan aan xadidnayn ee meel walba lagu cabayo. Bulshada ayaana la wadaagay aragtidooda ku aadan sharcigan cusub ee sigaarka ka dhana dadka caba, waana kuwan iyagoo aragtidooda ka dhiibanaya. Aan waxaan u arkaa arrinta baarlamaanku ansixiyay in ay arrin aad iyo aad u wanaagsan tahay. Sigaarku waa shay xun aan caafimaad ahaan u wanaagsanayn, marka bulshada dhexdeeda ama bulshada meelaha isugu timaado in lagala fogaado waa arrin macnaha aad iyo aad u wanaagsan in go'aanka la soo saaro. Caalamka oo dhan wax ka jira weeyaan, macnaha meelaha public ee dadku isugu imanayo in laga fogeeyo sigaarka oo lagu cabin. Waan cabaa anigu sigaarka actually, laakiin inta habeen walba iyo maalin walba inaan joojiyo baa niyadeeda ku jirta. Marka waa waxyaabaha aan ku dayn doonaba marka la yiraahdo meelaha dadku isugu yimaadeen lagu cabin ee dad qofkii la takooro. Aniga iyo dad fara badan oo lamid ah waan iska dayn doonaa hadii la halka noqdo. Magacayga waa Ruqaysha Xasan weeyaan. Sigaarka fikirka aan ka arko, fikir qaldan baan ka arkaa. Caafimaad daraan ka arkaa. dhibaatooyin badan inuu bulshada u keenay ayaan ka arkaa. Qofka sigaarka cabaana waxaan aaminsanahay caafimaadkiisa inuu ku ciyaar. Dhalinyaro badan oo soo kacaysana uu hadafkoodii luminayn. Saasan ka aaminsanahay. Waxaan leeyahay fikirka aad baan ugu faraxsanahay. Waana loola soo dhahay. Say tahayna ha loo dhaqan geliyo oo ha loo taabgeliyo ayaan leeyahay. Waan aaminsanahay fikirka aad baan u jecelahay waan soo dhaweynayaa. waa warbixintii uu magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyaheena Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo ku saabsanaa go'aanka Itoobiya ka gaartay sigaarka iyo khamriga. Gudniinka hablaha Somaliland aad buu sareeyaa. cilada qadarka farsamada raal laga haatana Facebook aan guda galaynaa. Waa Cabdikamaal Ibraahim Cali Cabdi oo jooga magaalada Baydhabo. go'aan ka soo saaridda dalka Itoobiya oo in sigaarka iyo khamriga la joojiyo runtii waa arrin soo dhaweyn mudana oo aad u muhiim ah inay soo saaraan go'aan balse ilma ahayn in ay ku riyaaqi doonaan dadka cabba sigaarka waayo aad bay ugu adkaysanaysaa in ay joojiyaan cabida sigaarka iyo khamriga. Aniguse waxay ila tahay wili kama yani arrintan wax iskama bedelayso ilaa laga soo saaro cadaadis xoogan. mahadsanidin ayuu yidhi Xayaad Aragsan oo joogta Djibouti. go'aanka Itoobiya ay ka soo saartay khamriga iyo sigaarka run ahaantii waxaan u arkaa tallaabo loo qaaday dhinaca fiican, waxaana habboonaan lahayd in gebi ahaan la joojiyo khamriga iyo sigaarka sababtoo ah way dhibaato badan yihiin. waa qodobkii ku saabsanaa Facebooka ay fariinta ay kaga soo dhiibteen talooyinkooda dhegeystayaasheena khadka inagala socda. iminkana Somaliland. ururka dhalinyarada ee la dagaalama gudniinka ee Somaliland ayaa ka digay in gudniinka gabdhaha uu weli aad uga sarreeyo jamhuuriyadda iskeed uga dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland. ururka ayaa midaasi u aaneeyay dadka oo aan weli ka dhaadhicin khatarta gudniinka uu leeyahay haweenka gaar ahaan xilliga dhalmada. haddaba iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta gudniinka fircooniga ayaa waxaanu eegaynaa heerka uu gaarsiisan yahay gudniinka gabdhaha yaryar ee Somaliland. waxaana murtaasi ka waraystay Dr. Maryan Cabdullaahi Daahir oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee la dagaalama gudniinka ee Somaliland. waan marka hore weydiinay heerka uu gaarsiisan yahay gudniinka fircooniga ee deegaankaasi. Gudniinka hablaha ee Somaliland aad buu sareeyaa. warbixinahu sheegayaan inuu gaarsiisan yahay 98% in ka yahay hablaha Somaliland ee ka yar da'da 40 inay gabigood ku dhacay FGM-ka ama gudniinka. waa in yar la taabto iyo hadii la wada gooyo hadii la talaba waa FGM. marka imika Somaliland 98% ka jiray waxa weeyaan hablaha ama in yar ba la taabtay ama waa la wada jaray ama way kordhiyeen oo ah ka duwan tii hore sameyn jireen. tirada aad bay u badan tahay. marka ma waxaad ka hadlaysaa gudniinka fircooniga mise midkan kale ee caadiga? eegayno macnaha asalka uu leeyahay gudniinku waxa weeyaan ama FGM-ka hadaynu macnayno waxa weeyaan dib kastoo loo geysto xubinta inanta ama gabadha. marka hadaynu isku wada qaadno saas wuxuu badan yahay oo ama fircooni ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo sunna imika ay dadku isticmaalaan. marka qaybahaas oo kala duwan oo welibana sunnigiina siyaabo kala duwan hablihii loo dhibaataynayo. markankoo dhan baad ka soo no gudniin oo dhan baan ka soo bal noo kala sheeg farqiga u dhexeeya gudniinka fircooniga iyo midkan caadiga ah ee sunniga. gudniinka fircooniga caalamiyan sida loo macneeyo iyo say Soomaalidu u macnaysaa way kala duwan tahay oo ciyaal loo kala qaybay. marka nooca ugu horeeya waxa weeyaan in laga diijiyo. nooca ku xiga waa in qayb la jaro ama 3 meeloodba 2 meelood la jaro. qayb saddexaad waa in inta laga wada jaro xubintii oo dhan la tolo. iyo qayb afraad oo ama hal la gubo ama hal la dilaac ama sida doona hal ku sameeyo. marka inagu inta badan waxaynu isticmaalnaa ka saddexaad oo fircooni iyo ku sunni ay in
ilaa imika anagu waan kasoo horjeednaa waxaas oo dhan meel alla meelay kusoo aroortay iyo meel alla meelay ku sal leedahay in inanta la dhibo si kastaba maaha ayaan anagu aaminsanahay. maryama sideed ku ogaateen in boqolkiiba 98 uu gaarsiisan yahay heerka gudniinka Soomaaliland? wallahi anaga kaliya tamaan ogaanin waxaa jirta warbixino ama cilmi baadhisyo badan oo ka socda wadanka inkastoo inay isku xidhnaan ama ay tahay NGO-yada ay qabtaan. marka warbixinahaasi in badan waxay sheegayaan ilaa 2011 warbixin ay soo saartay maalin ugu dambeysay sanadkii hore 2018 waxay sheegaysaa ilaa imika inuu yahay gudniinku wax laga isticmaalo goob kasta iyo meel kasta uu qof Soomaali joogo. waa Dr. Mariana Cabdullaahi Daahir oo waramaysay Cabdi Fataax Cagayare haatan ciyaaraha. tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa rumaysan in tartanka ay kooxaha ugu jiraan hanashada horyaalka xilli ciyaareedkan uu soo xoogaysan doono oo lagu kala bixi doono ciyaaraha ugu dambeeya. Manchester City ayaa caawa la ciyaari doona Everton haddii ay ka badisana Tottenham ayaa 5 dhibcood oo kaliya ka hooseysa Liverpool. isla caawana kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee Spain ayaa isaga hor iman doona kulan xasaasi ah oo lugta koowaad ee semi-finalka Copa del Rey. haatan dhageystayaal qodobkaasi ka xiisa badan waa gabar fanaanada ah oo pop starka Tajikistan u dhalatay ayaa lagu ganaaxay xaflad dhalasho ay samaystay. waa sheekooyin ka duwan. Cabdiqaadir ayaa studio kula soo diray. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan gabadhan oo lagu magacaabo Firuza Khalifoza ayaa waxaa lagu ganaxay lacag gaaraysa $530 waxaana ku ganaxday maxkamad ku taala magaalada caasimadda dalkaasi oo lagu magacaabo Dushanbe kadib markii oo ku saabsan xafladaasi ay soo dhigtay barteeda Instagram-ka iyaga oo ciyaarayo qodobka 8 ee dalkaasi Tajikistan oo ka hadlo shuruucda dhaqanka ayaa mamnuucay in meel ka baxsan guriyaha laga dhigto xafladaha dhalashada. marka sanadkii 2007 ayaa waxaa la soo rogay sharcigaasi oo ku saabsan in xafladaha lagu dhigan karin banaanka. وهاجاك عبد القادر وحنا ملاني أنت تبغى يكون على الجناح نوع يعني تبغى الصومالية هات وحب الله إنه بريان تمي هوتيلات ميلاس كوسا ميستان مركا محد سلي عبد القادر وأنت يعني وادقن كتير ودمك اللي دون كلي نيوه أنت بدن حتى صوماليا مركا لده عاد أيو نوصل بطي عاد أيو نوصل بطي دقن كاسي ووضع ركتي أنت بدن دينيا حتى إسلام ما قبوا إن أنت بدن حفلها زلديكتو لكن أنا صوماليا waxaan intaan banaanka u baxno caruurta dhalasho u sameeyna dadkii weynaa xitaa qaaran dhalashada gareyn xitaa ayaa waxay sameeyaan inta badan inay waqti cayiman iska qabsadaan ay dhalashooyin hore iyo waxay iska sameystaan. marka arintaasi aad ay noogu soo badatay aan lihi karaa Cabdiraxmaan. aad baad u mahadsantahay. waa Cabdiqaadir Yuusuf Cali sheekadii Tajikistan gabadh lagu ganaaxay dhalasho ay sameysatay. haatan dhageystayaal waxaan nagala socotaan waa BBC waxaan ku soo dhawaataan barnaamijkeennii baafinta. baafinta maanta waxaa si wada jir ah stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi kaga soo tabinaya anigoo ah Samiira Cabdullaahi Jaamac iyo Caasha Saciid Xasan. mahadsan Samiira. baafinta ugu horeysa waxay naga soo gaartay Axmed Ibrahim Macallim oo jooga Beledweyne. waxa uu baafinaya Maxamed Axmed Ibrahim waxa uu dambeysay isagoo ku sugan dalka Talyaaniga 2014. haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Axmed Ibrahim ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Beledweyne. xalane Afrax Cabdullaahi oo jooga Dhuusamareeb waxa uu baafinayaa Cabdulfataax Afrax Cabdullaahi waxa uu dambeysay isagoo ku sugan dalka Turkiga sanadii 2015. haddaba haddii uu maqlayo Cabdulfataax Afrax Cabdullaahi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xalane Afrax Cabdullaahi iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Dhuusamareeb ama telefoonka numbarkiisu yahay 252544476. أسد محمد علي أو جوجا بلدوين حاو بافينيا عبد محمد علي وحقور دمبيسي سوى كسوان ليبي لبدي يكون شاني تبنكي هذا واحد يقول مخليا عبد محمد علي أما بيجرت عد قرني سفضل مركي سهل جارسيو أسد محمد أيضا وحوار اللوصي مرينكرو حفيز كبافين تبش عسى كل هذا هاي بلدوين. محمد علي حسين oo jooga Beledweyne waxa uu baafinayaa Warsame Cali Xuseen waxa uu dambeysay isagoo ku sugan dalka Mozambique sanadii 2012. haddaba hadii uu maqlayo Warsame Cali Xuseen ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Maxamed Cali Xuseen iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Beledweyne.
hidda cali axmed oo joogto beledweyne waxay baafinaysaa xamdi cali axmed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan liibiya 2012 haddaba haddii ayna maqlayso xamdi cali axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyey hindi cali axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay beledweyne. shaafici axmed khaliif oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa saalax shaafici axmed waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Tanzania sanadii 2009 haddaba haddii uuna maqlayo saalax shaafici axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo shaafici axmed khaliif iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 xasan cabdulle maxamed oo jooga beledweyne waxa uu baafinayaa axmed zaki xasan cabdulle waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan liibiya 2016 haddaba haddii uuna maqlayo axmed zaki amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xasan cabdulle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay beledweyne ama telefoonka lambarkiisu yahay 2526 shamis xasan xalane oo joogta dhuusamareeb waxa ay baafinaysaa sawda xasan xalan bise iyadoo ku sugan Suudaan sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayso sawda xasan xalane ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo shamis xasan xalane iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526441375 cabdulaahi maxamed ibraahim oo jooga beledweyne waxa uu baafinayaa luul cabdulaahi maxamed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Austria 2011 haddaba haddii ayna maqlayso luul cabdulaahi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cabdulaahi maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay beledweyne. ilhaan xaashi caynte oo joogta dhuusamareeb waxay baafinaysaa yustur cali faarax waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 2007 haddaba haddii ayna maqlayso yustur cali faarax ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo ilhaan xaashi caynte iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526441375 hooyo nuuro xasan faarax oo joogto beledweyne waxay baafinaysaa xasan khaliif ibraahim waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Thailand 2006 haddaba haddii uuna maqlayo xasan khaliif ibraahim ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo hooyo nuuro xasan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay beledweyne ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 2526442228 yaaquub mustafa cabdiraxmaan oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa xalaawi yuusuf mustafa waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2000 haddaba haddii ayna maqlayso xalaawi yaaquub mustafa ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo yaaquub mustafa cabdiraxmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526441375 abuukar cusmaan khaliif oo jooga beledweyne waxa uu baafinayaa faarax cusmaan khaliif waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Masar 2007 haddaba haddii uuna maqlayo faarax cusmaan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo abuukar cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay beledweyne. daahir muumin mataan oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa ubax muumin mataan waxa ugu wardambeysay dalka Djibouti sanadii 2008 haddaba haddii ayna maqlayso ubax muumin mataan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo daahir muumin mataan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb. shukri cabdi maxamed oo joogta beledweyne waxay baafinaysaa asad cabdi maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Morocco 2014 haddaba haddii uuna maqlayo asad cabdi maxamed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo shukri cabdi maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay beledweyne. cabdikariim xasan axmeddey oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa khamar cabdikariim xasan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2012 haddaba haddii ayna maqlayso khamar cabdikariim xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cabdikariim xasan axmeddey iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb amaba telefoonka nambarkiisu yahay 25262222 xabiibo maxamuud cali oo joogto beledweyne waxay baafinaysaa cabdiyaro maxamuud cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Canada 1991 haddaba haddii uuna maqlayo cabdiyaro maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xabiibo maxamed cali
iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay galgaduud. nuur maxamed xasan oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa fahmo cali maxamed waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan dalka ingiriiska sanadii 2005 haddaba haddii ayna maqlayso fahmo cali maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nuur maxamed xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 maryan mukhtaar axmed oo joogto dhuusamareeb waxay baafinaysaa fatxi mukhtaar axmed waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan koonfur afrika 2004 haddaba haddii ayna maqlayso fatxi mukhtaar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maryan mukhtaar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb. oo joogta cadaada waxay baafinaysaa cawil muuse rooble waxaa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka Holland sanadii 2012 haddaba haddii uu maqlayo cawil muuse rooble amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ubax cabdulle jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 farduuso xasan aadan oo joogto galinsoor waxay baafinaysaa maslax axmed shiiqow waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalka sacuudiga 2000 haddaba haddii uuna maqlayo maslax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo farduuso xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb. cabdi maxamuud maalin oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa cabdulkariim maxamed wardheere waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 1993 haddaba haddii uu maqlayo cabdulkariim maxamed wardheere amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdi maxamuud maalin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 saleebaan aadan maxamed oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa xalimo aadan maxamed waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 1999 haddaba haddii ayna maqlayso xalimo aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo saleebaan aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dhuusamareeb. cabdi xuseen aadan oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa cabdulle xaashi axmed waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalka Canada sanadii 2005 haddaba haddii uuna maqlayo cabdulle xaashi jirto cid garanaysa gaarsiiyo cabdi xuseen aadan loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dhuusamareeb amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 maslax daahir yuusuf oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa xaawo daahir yuusuf waxaa ugu hordambeysay sanadkii 2007 haddaba haddii ayna maqlayso xaawo daahir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo maslax daahir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dhuusamareeb. siyaad cumar jaamac oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa xaawan nuur sayid cumar waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan dalka Greega sanadii 2001 haddaba haddii ayna maqlayso xaawan nuur sayid cumar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sayid cumar jaamac cabdulle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 bootaan xaashi afrax oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa faxdi bootaan xaashi waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2011 haddaba haddii uuna maqlayo faxdi bootaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo bootaan xaashi afrax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jigjiga. maxamed xuseen jaamac oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa fahma maxamed xuseen waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2006 haddaba haddii ayna maqlayso fahmo maxamed xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed xuseen jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhuusamareeb amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 bootaan mukhtaar jaamac oo jooga dhuusamareeb waxa uu baafinayaa cumar mahad mustaf waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan koonfurta suudaan 2010 haddaba haddii uuna maqlayo cumar mahad mustaf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo bootaan mukhtaar jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dhuusamareeb. baafinta ugu dambeysana waxaa inaga soo gaartay faadumo cabdi xuseen oo joogta binaysa timiro cabdi xuseen waxaa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan dalka Tunisia sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayso timiro cabdi xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo faadumo cabdi xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beledweyne. baafintana maanta waa naga inta.
samiira iyo caasha aad bay u mahadsan yihiin qodobkaas ayaa u dambeeyay barnaamijkeena baafinta waa dhammaantan oo dhammaantiin idin leh sida iyo nabadgelyo